magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa durba ka bilowday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed xilli mudaxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka harsan tahay wax ka yar 10 maalmood. waxaa markaasi soo baxaya in dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan mucaaradka ay bilaabeen maalinimadii shalay ahayd. xubnaha mucaaradka oo la hadlay warbaahinta shir xasaasina ku yeeshay hotel jaziira ee magaalada muqdisho ayaa soo saaray bayaan markaasi aad u culus oo ku qornaa luuqad adag, iyagoona shir jiraa'id markaasi ka daba qabtay bayaanka ay soo saareen. kadib shirka jiraa'id iyo bayaanka markaasi golaha mustaqbalka ee mucaaradka dowladda federaalk Soomaaliya ay soo saareen ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah bayaanadii markaasi luuqadii ugu adkeyd lagula hadlay dowladda federaalk Soomaaliya. xubnahan oo markaasi si keli warbaahinta ula hadlay waxa ay sheegeen in wixii ka dambeeya 15 May markaasi aysan marnaba aqoonsanayn madaxweynaha Soomaaliya. qaar ka mid ah xubnaha waxay sheegeen haddii la gaaro 16 bisha May in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo la mid ah dadka caadiga ah isla markaana degan filla Soomaaliya. waxay sheegeen in wixii markaasi ka dambeeya ay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn oo ay ku badbaadinayaan dalka isla markaana ay kaga hortagayaan hubanti la'aan siyaasadeed oo uu qaranka Soomaaliya markaasi wajahaya firaaq dastuuriya. waxay sheegeen xubnahan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud tiro dhowr jeer ah markaasi ay fariin u direen, sidoo kalena ay markaasi digniin u direen dhammaanna madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhagaha ka fureystay baaqyada xubnahani. waxayna sheegeen wixii hadda ka dambeeya in marnaba aysan aqbali doonin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka uu dhammaado mudaxileedkiisa uu villada isaga sii jiro, ayna qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn. xubnaha waxay sheegeen in dastuurka ay u aqoonsan yihiin dastuurkii 2012 midkan bedelistiisa halka dhinac ay ka timidna aysan marnaba markaasi aqoonsanayn. waxay sheegeen sidoo kale in doorashooyinka hadda socda iyo kuwii horey gobolka banaadir looga qabtay dhammaan ay yihiin kuwa hal dhinaca sharcigana markaasi baalmarsan. waxayna sheegeen in waxa hadda socda oo dhanba ay yihiin wax hal qof oo keliya gacanta ugu jiro isla markaana aan sina markaasi loo aqbali doonin. sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay doorashooyinka hadda dalka ka socda ayaa ku tilmaamay kuwa markaasi sida sanduuq furahooda uu xasan haayo oo kale. waxa uu yidhi haddii hadda aniga aan u baahdo xisbigayga nabad iyo nolol inaan ku biirno doorashada socoto, waxa uu yidhi waana loo ogolaanaya, waana loo furayaa, waana galaynaa ayuu yidhi. laakiin taas waxay muujinaysaa in waxa socda oo dhanba ay yihiin wax markaasi aan sharciyad ku dhisnayn. mar hore ayay xirantay ayuu yidhi diiwaangelinta xisbiyada, laakiin haddii aan birri subaxii u tago inaan iska diiwaangeliyo waa la aqbalaya ayuu yidhi. waana nidaam doorasho oo musuq maasuq ku dhisan iyo sidoo kale nidaam doorasho oo hal qof oo keliya markaasi gacantiisa ku jira. magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aad u culus iyada oo mudaxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu gabaabsi ku jiro. xasan sheekh ayaa markii uu soo baxay bayaanka iyo baaqa markaasi golaha mustaqbalka ee luuqadda adag markaasi lagula hadlay madaxda filla Soomaaliya, markiiba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warqad soo saaray. waxaana 10 bisha May uu sheegay inuu shir la yeelanayo golaha mustaqbalka Soomaaliya oo uu markaasi doonayo inuu kala hadlo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka, taasoo lagu tilmaamay marin habaabin iyo sidoo kale waqti lumin kale oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa ay doonayaan in golaha mustaqbalka ay waqtiga markaasi kaga dilaan. aragtidaada qaybta faallada ku dhiibo sidaad u aragto.